gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku hambalyeeyay reer Muqdisho mucaaradada adag ee kala hor yimaadeen muddo korinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo. Faysal ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliya inay soo gacan galiyaan xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland ee taageeray Farmaajo, isagoo intaasi raaciyay in maxkamad saari doonaan xubnaha reer Soomaaliland ee taageeray madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Gudoomiyaha Faysal ayaa intaasi raaciyay in xisbigiisa Ucud ay qacan weyn ka siin doonaan Soomaaliya siday u dooran lahaayeen madax wanaagsan. waana kan Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya arrimahaas. waxaan halkan hambalyeynaa saraakiisha iyo ciidanka Muqdisho ee ka dhiidhiyay wixii inantu ka gabisay ee lagu hayn jiray agaana iyo jur iyo balaay sheegsay shayaadiinta caruurtoodii ee ka dhiidhiyay ee ka baxay car 2 sano ha socoto iyo caawa ay ku dhaqaaqeen kuwii ahaa dowladda goboleedii Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed saddexdina way isdiideen. maanta marka waxa weeye ninkii Farmaajo iyo caruurtii kacaanka qool bay ku jiraan. waxaan leenahay reer Muqdisho waxaan leenahay Muqdisho ma toosay heeryadiina ma tuurtay Farmaajona ma tuurtay baan insha Allah taala khatar وعلينا حبايو أنا غير مقدسة وين ودي سنة وكوينو هيلي كوا إنك هالكاسة وهيلي فرماشنا نوصل دي وانا هالكون محكمة وصارنا إن شاء الله تعالى هالكون محكمة صار نوصل دي هاي نوصل دي وحين دونا اعتراف كانوا دبدو يالا ما يندون ولا جيل بانو دونان dalkeeni gacantayna ku haysanaa markuu dagaalku laba qol isdayso oo kala adkaan weyda la yiraahdo wada hadlo maxaanu kula hadlaa Soomaaliya ma waxbayna ka haysan soo dalkeeni ma haysano aynu dalka adduunka la macaamilo waxaan ka hadlaynaa iyagana inaga caawino maanta waxaan leenahay tala anigu Faysal iyo Cudhaanba gacan weyn ma ka geysanaa inay dad wanaagsan soo ay doortaan insha Allah taala oo midada daabkeeda qabsadaan Faysal Cali Waraabe ayaa siyaasiyiinta badan ka hadla dhaliilaha dowladda Soomaaliya isagoo indhaha ka laliya musharaxiinta xisbigiisa ee xukuumadda Muuse Biixi maalin walba oo taxabta jeelka, kuwaas oo tiro badan oo ka mid ah musharaxiinta u tartamay xisbiga Ucud markii la xidhay ka bacdi ay ka tanaasuleen hankoodii.